ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي هذا موسى ولول هو هوgaanka ururka Somali American Council of Oregon oo urur u dacwooda danaha iyo xuquuqda Somali community-ga iyo serviceda loo qabanayo. Hadaan ka sheekeeyo ururkan saaka waxaa la aasaasay sanadkii 2011. ujeedada loo aasaasayna waxay ahayd community oo markaas dhibaatooyin ay la soo marxalad adag ay la soo darseen una baahday guddi ama urur ay ku shiraan oo danahooda iyo xuquuqdooda hadlaan. sanadkii 2011 bishii January ayaan ku dhawaaqay ururkan magaaladan ka dhisan ee Saako oo u taagan Somali American Council of Oregon. haddaan idinka sheekeeyo taariikhiyan aniga magaaladan waxaan deganaa muddo 40 sano ku dhow 38 sano hadduu la yiraahdo sanadkan hadda maanta ku jirno bishii koodeeda. markaan waddankan usoo guurayay waxay ahayd ardaynimo inaan jaamacad ka dhigto ayaan u imid sanadkii 1981. magaalada markaan soo degayay community-ga deganaa Soomaalida aad iyo aad ayay tiradiisa u yareed. inta deganeed oo arday u badnaa inta badan iyo dhowr 2-3 qof oo qoys ahayna deganaayeen. kulligeen hal guri ayaan meesha ku wada qadayn jirnay isugu imaan jirnay. tiradaas ayayna community-ga ahayd markii sanadkaas 80 iyo wixii ka dambeeyay. taariikhiyan haddii isteedka dib loogu noqdo Soomaaliga u horreeyay ama qofkii shakhsi ahaan Soomaali la og yahay inta taariikhna la soo cadeeyay waxaa jirnay in Soomaaliya oo ka yimid markaas ugu qoran meesha waxa ugu qornaa inuu ahaa British Somaliland inuu ka yimid laakiin Soomaali ahaan ku joogay jaamacad ka qalin jabiyay 1941 magaalada noo dhow oo jaamacadan hadda la baxday Oregon State University. markaan dib u soo noqono taariikhdan sii socono community-ga u horreeyay Soomaalida ahaa ee shakhsiyaadka ah waxay magaalada kusoo koreen dhibaatooyinka bilowgeedii ilaa 72-73 ayay ahayd shakhsiga u horreeyay ee magaalada soo degay. haddii dadka marka la iswarsado marka dib loogu noqdo sababta keentay in Somali community-ga shakhsiyada u horreeyay inta u yimaadaan waxay ahayd school ay lahaan jireen Mennonite-ka oo private school ahaa ee ku yaala magaalada Jowhar ayaa wuxuu xiriirkiisa isagana uu ka bilaabanayay ama xiriir la lahaa magaaladan Salem ay Boran u jirta 30 mayl ama in adiga ay qaadanayso nus saac oo gaari lagu tago. sidaas ayaa keentay inay ardaydii u horreysay inta ku yimaadaan. inkastoo America ay ku taalo waqooyigeeda meesha ugu shaqeyso haddana xiriirkaas ayaa jira oo rag macallimiin oo Soomaaliya ka shaqeyn jiray oo jaamacad oo dugsiga sare ee Jowhar lagu magacaabay ka shaqeyn jiray ayaa iyana qaarkood inta xiriir la lahaa. ardaydii timid 80 arday badan oo timid generation-kii yimid ee waxbarashada soo doontay ee passportka Soomaaliya ku yimid ee waddankan visa ku joogay waxaa bedelay in waddankii uu burbur yimaado nasiib daro inay Soomaali badan oo qaxooti yimaadaan. qaxootigii u horreysay ee Soomaali ah ee waddankan magaalada Oregon Portland Oregon la keenayna waxay ahayd bishii February iyo 1992 oo qoyska u horreeyay ee Soomaali ah ee magaaladan soo degay. ciido Mareykan oo Soomaaliya ka shaqeyn jiray ayaa soo dhaweeyay gurigooda la soo dejiyay iyagoo raadinaya qof turjubaan u noqdo oo ka u dhaxeeya iyagii Soomaalidii bartida u ahayd. sidaas ayay aniga ugu soo hareen shakhsiyan waan in Mareykan saaxiib ahaan oo yaa u sheegay inuu ninka jiro iyaga soo wacay. jawaabta aan siin waxay ahayd maadaama Soomaaliya og dhibka ka dhacay dadkina dhibaataysan yihiin in dad badan ay xiriir qaxooti ku jiraan oo xitaa u jiro reerka aabay hooyadii walaalada iyo ehelka fara badan oo saas oo la socda haddana qaxootinimo ama qof qaxootinimo soo maray markaas ayaa ugu horreysay Soomaaliya. markaas ayaan ugu horreysay inaan fahamtid dhibaatooyinka qaxootinimada leedahay waddankan ay ku cusub yihiin luqadii ku cusub yihiin xitaa hawadan qabow ee maaragtay marka la gaaro xilliyada qabowga February oo kale waa xilli qabow weli winter baa lagu jira ee la soo kulmaan. markaas ayay bilowday ilaa sanadkaas 92 ilaa maanta oo 2019 muddo ku dhow 17 sano ayaan waxaan la shaqeynay community Soomaalida iyadoo service-kayga badanaa u ahaa mid volunteer ah oo ilaa haddana volunteer ugu shaqeeyo aan community-ga la shaqeyn jiray. tiradaas familkii u horreeyay ama tiradii u badneed ee Soomaali ah oo qoysas badan ah tartiib ayay imaanayeen laakiin qoysaskii badnaa ee Soomaali community-ga waxaa waddankan ay yimaadeen
1996 community family badan ay yimid oo meel kaniisada lagu soo dejiyey oo weliba si khalad annaga ku talagalin oonan ogeyn ayaa lagu soo ogaaday inay meesha degan yihiin markaas ayaa noogu horreysay Somali community oo tiro ahaan aan ku dhihi karno oo leeyahay waa tiro community lagu tilmaamaan gaarnay markaas ayaa noogu horreysay masaajidkii ugu horreysay in la sameeyo oo Somali community ay degaan wixii markaa ka dambeeyna sanad ka dambeeyay way soo tarayeen tirada ugu badan ee Soomaaliya waxay aad u soo galeen 2000 wixii ka dambeeyna tirada waa sii badanaysay maanta state of Oregon waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida degan 12 ilaa 15 kun inay degan tahay intooda badan 90% magaalada Portland iyo agagaarkeeda ku nool yihiin inta ka fog aad bay u yartahay tiradooda sababta magaalada weynaatay ayaa waxay noo keentay inay ku bataan businessyada Soomaalida ahaa sida maanta halkaan taaganahay inay jiraan businessyada Soomaaliya maqaayado Soomaaliya ay leedahay oo magaalada Portland ka furan oo iyo business mall kala ah oo timajarihi leh oo leh dharkii meesha lagu cabirayo markii lagu talaayay xawaalid ay ka furan tahay meeshii telefoonka xitaa servicekeeda laga sameeyo ku jiro horumarkaas aan maanta aan gaarnay Somali community ay gaareen waxaa kaloo ku jira masaajidda Soomaalida inay maanta ilaa 3 masaajid oo Soomaalida iyadu ay leedahay iyada ay toos u maamusho inay magaalada ka furan yihiin mid baaba hadda cusub oo soo guuri doona xaafad 124 iyo Gleason kaas ugu dambeeya oo jiri masaajidkaasna Ilaahay isbuuc soo socda aan furi doonaa insha Allah aan ka qayb gali doonaa furitaankiisa waxaan kaloo Soomaalida ay leedahay businessyada ay furatay waxaa kamid ah business oo taxi ah oo cab drivers ah oo la dhaho PDX cab oo Soomaalida ay leedahay shaqaalahoodana intooda badan ay Soomaali yihiin una furan qof kasta oo Soomaali ah maanta inuu ka qayb qaato oo garab siiyo looga baahan yahay sababtoo waa business ay Soomaalida ku faani karto ummad kasta oo waddanka soo degtana waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku faani kartaa waxtarkooda lagu arko waxaa waye ugu muhiimsan waxaa waye in la arko maxay business ku darsadeen marka maanta meesha aan taaganahay iyo meesha aan taagnayn 92 96 wax weyn ayaa u dhexeeya waana wax qof kasta oo Soomaali ah oo magaaladan degan oo taariikhdeeda arkay ama la socdo uu ku faani karo maanta ayaan taaganahay waxaa kaloo inta idin soo raaca haddaan dib ugu soo noqdo organizationka saaka la yiraahdo Somali Community of Oregon waxaa la sameeyay 2011 la sameeyay waxay inta badan ka shaqeynaysay in ay soo saarto dadka xaqooda iyo cadaaladooda ma ka hadlayno qof warqada loo buuxiyey iyo taasoo kale maaha waxaan ka hadlaynaa in ay ku dadaashay kana dambeysay in iskuullada Portland Oregon Public School la qoro macallimiin Soomaali ah sababtoo Soomaalida ardayda waxay noqotay kuwa dhib badan waxaan ku suurtagalnay inaan soo saarno lambarka Soomaalida inuu tiradooda inta dhacaysa ama imtixaanada state ku dhacaysa uu 88% u gaarsiisan yahay oo arday badan aysan rajo ka qabin inay ka qalin jabiyaan dugsi sare in ardayda la siin jiro warqado la yiraahdo modified diploma oo ah diblomaha loogu talagalay ilmaha maskaxda wax ka qaba ama aan qof aan dugsi sare caadi ahayn diblomahaasna qiimo uu leeyahay aysan jirin jaamacad ku qiimeynaysa xitaa grant lagu siinayo aysan jirin taa ayaa ardaydan la siin jiray markaan arrintan dabagalnayna yani waxay keentay in macallimiin Soomaaliya la qoro in luqadda Soomaaliga maanta iskuullada Portland Public School ay ku jirto luqadaha laga qoro ardayda Soomaaliya ama qof kasta oo iskuulka dhigta uu ka qayb ka noqon karo waxaan kaloo ku guuleysanay inaan Portland Police aan la shaqeyno oo xiriir fiican la sameysano oo maanta in haddii wax dhibaato ay noo yimaadaan in Portland Police ay haysto community ay la soo xiriirto ama kala xiriirto waxaa noo suurtagashay in si wanaag in biliiskii u horreeyay Soomaali ah oo Portland muddo hadda 3 sano laga joogo ku dhawaad uu nooga qayb galo haddana waxaan ku rajaynaynaa sanadka soo socda inaan ku guuleysano qof shakhsi ah oo community liaison Soomaalida kaliya la shaqeeya in loo qoro waa markii u horreysay oo Portland Police ay ku dhaqaaqdo tallaabo noocaas oo kale ah waxaana taasi inoo suurtagelisay dadaalka ay ururka saaka u sameysay Somali community-ga iyadoo dad badan oo Soomaaliya magaalada degan oo odayaal iyo waxgarad rag iyo haweenba leh ay qayb ka qaateen dhisideedii iyo dagaalankeedii aan ku guuleysanayna maanta magacayna inuu kor u soo kaco waxaa tallaabada ugu weyn oo taariikhiyan oo iyadana aad iyo aad u muhiim u ah waxaa weeye tii sanadkii lasoo dhaafay lagu dhawaaqay in uu ku dhawaaqay secretary stateka Oregon ah in Soomaaliga ku jiro 5 luqadood ee stateka doorashada ku jiro ayay ka mid tahay horumarkan gaarnay waxaa ka horreeyay oo iyadana si volunteer ah inkastoo aan ku dagaalanay u sameeyay iyagana Multnomah County maanta hay'ado badan oo community oo dowladda ah state ka noqoto city ka noqoto
federaalka noqoto ayaa waxay ku daraan luqadahooda lagu turjumayo luqada Soomaaliga. taana waa tallaabo horumar weyn ay Somali community ay gaartay oo aan dadaalkeena ku gaarnay. waxyaabo badan oo noo dhiman way jiraan. ururkan xafiiskan waxaa la furay sanad iyo bar ka hor ayaa la furay. ujeedada loo furayna waxaa weeye dhibaatada siyaasad ahaan maanta Soomaalida soo wajahday. taariikhina haddaan ka sheekeeyo ilaa maalinkan waddankan soo galayay waxaa bilooyin madaxweyne ahaa 81 madaxweyne Ronald Reagan intaasoo madaxweyne ayaa iska soo dambeysay. laakiin madaxweyne dowladda dadka ummadda Soomaalida shacabka Soomaalida toos magacooda waxooga sheega ama toos u ataaga ama ku tilmaama inaysan ahayn dad aan laga rabin America maanta ayaa noogu horeysay. taa marka waxay sababtay in dhibaatooyin ay shacabkeeni soo gaaraan oo cunsurinimo oo dad badan oo cunsuriyiinta la dhuuman jiray ay maanta qaarkood banaanka soo taagaan. waxaa kamid ah saa la socotaan balsanaya bar ka hor in gabar Soomaali ah oo 17 jir ah oo baska saaran oo nin cunsuri ah uu isku dayay inuu nafteeda uu dhibaato geliyo. nasiib wanaag 3 rag ayaa u soo gurmaday oo 2 ay ku nafwaayeen mid kalena dhaawac soo ka soo gaaray. laakiin dhibaatooyinkaas oo kale waa mid haddaan laga taxadarin ama aan ka digtoonayn soo noqon kara. waana sababta keentay rag wax karada iyo haweenba isugu jira oo Soomaali ah inay u yimaadeen ururkan ayna dhaheen anagaa taageerana community center in loo furo. community centerkan 9 bilood u horeysay waxaa bixinayay oo dhaqaaleynayay oo xafiiskaas kiradiisa iyo qalabkiisaba bixinayay dad Soomaaliyeed ah. hooyooyin Soomaaliyeed qaarkood dhaqaale haystaan ba iska yartahay ayaa ku tabarucay in community centerka la furo iyagoo u arkay inay u tahay meel ay isku aroorsan karaan meel danahooda lagu qaban karo. nasiib wanaag hay'ado kale ayaa maanta na caawiya oo xafiiskaas maanta noo furan noo sameeya waxyaabaha aan sameyno oo community ahaan waxaa kamid ah immigration hadday noqoto wixii cadaaladda kaala soo kulma wixii boliiska kaala soo kulma wixii iskuullada kaala soo kulma inaan xaqinii idin raadino oo aysan ahayn warqadkii lagu buuxiyo iyo waxyaabo kale hadday noqoto caafimaadka lagula xiriiraayo hadday noqoto qofkii gaaska kaco ama korontka go'do ama u baahan in lagu caawiyo inaan kala shaqeyno oo waxyaabaha maanta servisyada aan qabanay kamid tahay. dadka badanaa lama socdaan magaalada sababtaa dhibka ugu weyn aan haysta waxay tahay communitygeenii oo magaalada ku fatahsan oo meelo badan kala degan oo waxgaradkeeni iyo ismaqalkeeni iyo inaan iska warqabno ay aad iyo aad ay u yar tahay. taasna waxaan kaga shaqeynaa maanta inaan la shaqeyno xagga media inaan ka shaqeyno sababta media laba waxba uu keeni karaa. mid waxaa weeye communityga ayuu isku xiraa midna community codkiisa ayuu banaanka geeya. marka arrintaasna waa arrin hadda aan ku dadaalayna ka shaqeyno rag waxgarada oo khubara ah oo yaqaana ayaan hadda aan kala shaqeynaa. videohana wuxuu ka mid yahay astaamaha aad ku arki doontaan communityga iyo meesha uu socdo. waxaan ku qalqaalinayaa dad badan ayaan ogeyn. maalin nin baa albaabkaas isagoo taagan iskula aragnay oo ninaan muddo aqaanaya waan salaamay. wuxuu ii sheegay magaaladan dhibaatooyin badan ay ilmaha haystaan. wuxuuse intaa igu xijiyay inay Somali community aysan magaaladan ka jirin. anigoo farta ugu fiiqayan ku yidhi xafiiska gadaashaad ku yaalla muxuu yahay intuu saa u jallacsaday wuxuu yidhi muxuu yahay ma aqaanay waxaan ku yidhi waa community centerkeeni. marka sidaas ha ula socda community maanta waa qabnaa. community lagu sheegayo waa wax shakhsi maaha. communityga waa ummadooda. qof walbo hadduu communityga qayb ka noqdo oo gacantiisu ka geysto communityga horumar u gaaraya. waana arrin loo baahan yahay. waxaan ka hadlaynaa communityga waxaa weeye mustaqbalka ilmaheen inaan ka fikirno sida ku gaari lahaayeen iyo meesha ay wax marin lahaayeen. marka inaan mustaqbalka ilmaheen aan ka fikirno waa muhiim sababtoo ah ummad kasta taariikhdeeda ay ka tagayso waa ilmaha ay dhasho. nin walbo waqtigiisii oo maanta cimri ah ama da' jooga way imaan doontaa. laakiin waxaa la rabaa maxaad kaga tagtay maxaa ka dambeeya in 20 sano soo socoto 30 sano soo socoto inaad dhihi kartid community Soomaali ah oo dhisan oo qiimo leh oo waxtar leh yaan ka tagnay. haddiise naftaada kaga isku ekaatid communitygana horumar ma gaaraya adigana wax aad ka tegayso dhan ma jiro. mideeda kale waxyaabo kale waxaa jira muhiim ah oo dadka aysan qabin. communityga markuu xoogaysto markuu af dheer yeesho markuu magac dheer yeesho maaha magaaladan ama xaafadan kaliya aan degannaha kaliya wax ka tari karo xitaa ilaa Soomaaliya wax ka tari kara. waad aragtaan Minnesota horumarka ay gaareen inay dad badan oo Soomaaliya maanta joogooyin ay u doorteen oo madaxnimo ah. in maanta gabar Soomaaliyeed oo Ilhaan Cumar oo maanta ay fadhido Congress waa baarlamaanka ugu sarreeya America ay fadhido ay wakiil ka tahay
dadka ay matalay soo dooratay iyo magacii Soomaaliya ay kor u qaatay marka waxaana taa lagu gaaray community-ga iyo wadajirka iyo wada shaqaynta lagu gaaray shakhsi keligii farqigii foomarqaday Soomaalida kuma maadaan shakhsi keligii meel ma gaari karo qof walba community markaan maqalno waan ka xumahay taariikhiyan waxaan ugu haysta waxay tahay markii community la maqlo waxaa maskaxdeena kusoo dhaca in dhaqaale iyo wax la cuno iyo waxaasan ka shaqeynaa taas ma aha waxaan inta u furanayna ma aha maalinkii xafiiska la furayay dadkii aan wada fadhinay hadal aan u sheegay iyaan haddana qof walba oo Soomaali ah oo dhegeysanaya inuu xasuusto community-ga qofku shakhsi uu leeyahay ma aha qof kasta iskale qof kasta oo isxil saara qof kasta oo waajib saara wixii talaha noqoto tawar ha noqoto aad ku darsan kartid midna ha kala harin marna waa qalbigaaga ha gelin community-ga qofkaas aa fadhiya aniga matagaya hadhihin sababta ah waddankan talo ugu muhiimsan oo dadkan u sheego xoogaa igu qaatay inaan dadka aan xoogaa fahamsiiyo laakiin tan muhiimka waxay tahay haddaan Soomaaliya dib ugu noqono Soomaaliya waxaan dib ugu noqono nin walba tol iyo ehel buu lahaa oo leeyahay dadkaas iyo reerkaas iyo dadkaas uu ku xiran yahay America tolka iyo ehelkaaga aad leedahay waa Soomaali ehel kale ma lihid nin kala jecel inaad Burco iyo Baydhabo iyo Boosaaso iyo Banaadir iyo meel alla aad ka timid iyo Baraawo aan kala jecel ma joogo waddankan waxaa lagu arkaa qof Soomaali ah dhibka lagu arko waxay tahay qof midabkeena waa madow diintaadu waa muslim Soomaaliya wixii ka dhacayna dhibaatooyin ka dhacayna ilaa hadda dad qaarkood baa weli eediin oo haysta eedda maantana saaran waa in madaxweynaha waddankeeda uu farta lagu soo fiiqo oo uu dhaho dadkaas ma rabno sidaad la socotaan Soomaalida kumayaal baa sanad kasta la soo qaadi jiray sanadkan uu madaxweynaha ahaa hal shakhsi oo Soomaali ah oo la keenay ma jiro waa la joojiyey albaabka dhan waa la xiray dadkii visa haystay oo ku jira xitaa madaxweynihii reer Soomaaliya wuxuu ku jiraa isagoo visa loo diiday sababta ah wuxuu wataa passport Soomaaliya oo magaca Soomaaliya ku qoran tahay marka taas inaan wax ka bedelno waaye gurigaaga inaad fadhidid keliya maaha si waxyaaba badan ku dari kartaa hadalka waa taageero shirkaas kasoo qaybsho waa taageero jeebkaada oo ku darsato waa taageero community-ga aan wada dhisno community wuxuu ku imaan karaa markii nin walba iyo shakhsi kasta uu qayb ka qaato laakiin markaan dhaan hebel aan kusii daaya community ma jiraayo meel uu qof kaliya laba qof kaliya ka shaqeyso noqonaya taana intay socon karto waa yar tahay marka waxaan ku guubaabinayaa waqtiina ka faa'iidaysta ilmihiina u tura ilmihiina u naha mustaqbalkiina ka fikira shakhsi meel fadhiya hebel kaliya meel fadhiya ku hadlaya qiimo kama laha waddanka laakiin community adoo ka socda markaad meel fadhiistid qiimo weyn iyo qadarin weyn ayaad helaysaa qof walbana kursigu kaga kacaya sababtaa markaa leedahay community-ga yaan ka socdaa Soomaalida oo magacaas iyo magacaas leh waan socdo waxaa lagu arkaa qof ay ka dambeeyaan 1,000 qof ama 2,000 ama 10,000 sidii tirada la ogyahay inay sheego ilaa 15,000 oo qof ayaa daba socota ayaa leeyahay albaabadan saasaan albaab kastan aan kusoo furnaa waxaan rajeynayaa dadkii ninkii Ingiriis yaqaana wax qori kara nagala soo qayb galo islaam baa markaan organization bilaabi jiray noo imaan jirtay galab kasta noo imaan jirtay markii la bilaabay anagoo 10 qof xitaa dhammaan oo meel ku shirayna oo ka hadlayna sidii mustaqbalka iyo community Soomaaliya loo qaban lahaa tan aan ku daray inta halkaas aan soo garan tirada dib ma aha problemka tirada waxaa ka muhiimsan tayada waxaad ogaataan Soomaaliya 13 wiil oo dhalinyaro ah ayaa ka dambeeyay xoreynteeda marna waa isdhihin 5 qofood 6 qof oo meel ku jirtay waxay tari kartaa marna waa dhihin ka soo qayb gal adiga islaanta noo imaan jirtay waxay tiraan luqad ma aqaano waddankan ma aqaano xafiis ma idin garaaci karo laakiin hal waxaan sameynaa jira maalin kastoo shirka aad leedihiin oo iisoo sheegtaan shaah iyo waxaan soo karnaa wax macaan oo ducadana waa idinku dadaalaya ducada Ilaahay waa noo aqbalay maanta organization dowladda federaalka state of Oregon city of Portland county-ga kulli ay noo ictiraafsan yihiin ayaa noo furan oo taariikhda America baalkaga jira waxaan rabnaa in mustaqbalka jariiska socda dhalinyarada la hadlayo dhalinyarada waddankan dhibaatooyin badan baa haysata waxaan ka xumahay doorkii dadka waaweyn inaysan meeshii la rabo aysan ka soo bixin inaysan qaarkood fahamsaneen dhibaatooyinkaas ku jirtaan waxaan idinkula talinayaa inaad iska ilaalisaan xumaha inaad gaan ku beerto aad naxariis ka raadsan gaan qof kale wax xumaan ma ogi dhibaato kale ma yimaado inaad ka qayb qaataan community-ga inaad dhistaan mustaqbalkiina inaad dhistaan ilaa idinkaba maalin aad gaari doontaa inaad awlaad yeelataan oo aad waddankan iyo dadkan iyo naftiina wax ku tartaan intaas ayaan kula talinayaa Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.